kadib khudbadii madaxweynaha dalkani Kenya Mr Uhuru Kenyatta uu shaaciyay in laga bilaabo 4 toornimo ee maanta oo Talaada ay soo afjarmayso xayiraadihii lagu mamnuucay in la soo galo lagana baxo ismaamulada Nairobi, Mombasa iyo Mandera iyadoo dhanka kale bandowga habeenkii dalka ka jiro laga bilaabo 9 fiidnimo ilaa 4 toornimo lagu kordhiyay muddo 30 cisho khudbada madaxweynaha uu jeediyay iyo isbedelada saaka lagu soo kacay ayaa waxa dareenkooda iyo siday u arkaan wax ka weydiinay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Garissa waxaana kamid ahaa sida tan madaxweynaha inuu mahadsan yahay aad baan ugu farxay maadaama wadadii uu noo furay Nairobi meel kasta Kenya dhanba u furay uu mahadsan yahay anoo reer Garissa oo geed bay fadhiyo maanta farxad baan maaragtay dareemayaa laakiin hal ha sameeyo yuuna ka lug bixin caafimaadka iyo wanaaga iyo wax isku tarka iyo dadkiisa ha ogaada madaxweynaha uu isku furay wadanka si la rabay muu sameeynin cibaadaadkii saan ka rabna muu sameeynin madaxweynaha ka sii daran madaaristii iyo dugsiyihii wax la furan ma laha ilmihii hadda wacdihii wala joogan marka waxaan u baahnaan lahayn madaxweynaha inuu maaragtay shaaca ka qaado oo madaarista iyo dugsiyihii uu dib u furo dareenkayga ku aadan arrimaha madaxweynuhu ku dhawaaqay oo jidadka in la furo waa arrin wanaagsan oo la sugayay waana arrin muhiim ah waxyaalo badan way soo kordhin kartaa xagga ganacsiga xagga isu socodka xagga waa la ogyahay aad iyo aad arrin loo sugayay bay ahaayeen dad badan oo dee ganacsiga ka xiraa oo dhaqaalihii maaragtay ka xiraa iyo u furmayaa dad badan oo ka shaqayn jiray ka faa'iidaysanayaan ummaddii waa isdhexgalaysaa waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo maaragtay aad u soo dhaweynayna arrinta iyada marka waxaan leeyahay taas aad bay u fiican tahay waanaan dareenkaan muujinayana dee waan ku faraxsanahay jidad ku furmaan ugu dambeyntii madaxweynaha dalkani Kenya Mr Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu xuseen muddo 21 cisho si dhow loola socon doono waxyaabaha cudurka ku soo kordho iyo in cid waliba ay mas'uuliyad iska saarto dagaalka lagula jiro xanuunsidaha coronavirus dadka shacabka oo wareysanay ayaa qaarkood waxa ay noo sheegeen in madaxweynaha ay ka codsanayaan in uu goobaha cibaadada iyo sidoo kale tan iskuulada uu dib ugu furo sida ugu dhaqsiyaha badanna oo ka dhiibto isla markaasina go'aan uu ka qaato hadaasi siyaad warbaahinta kulmiye magaalada Garissa.